asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada xasuus qor dhakhtar idiin qorto idiin diyaariso doctor ibaaq buubaal. maalinba waxaan dhegaysanayay waraysi lala sameeyey sheekh weyn oo telefishinka laga waraysanayey. marba dad baa telefoon u soo dirayay oo wax weydiinayey. ninba telefoon u soo diray wuxuu ku idhi dayn fara badan ayaan ka ashtakoonaya iyo faqri iyo baahi, maxaan sameeyaa? wuxuu ku idhi sadaqad bixi. markaasaa wuxuu idhi bismi illaahi raxmaani raxiim, maa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin, sadaqa allaahu alcadiim. mid kalea la soo hadla wuxuu ku idhi dembi ban galay, baxan sameeyaa? wuxuu ugu jawaabuu ku idhi sadaqad bixi. nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi assadaqatu tudfi'u ghadaba rab sala allahu calayhi wasalam, oo macnaheedu ay tahay sadaqadu waxay bakhtiisaa, ay qaboojisaa ama bakhtiisaa cadhada ilaahay. mid kalea la soo hadla wuxuu ku idhi wan xanuunsanaya ii ducee. wuxuu ugu jawaabay sheekhuu ku idhi ducadayda uma baahnide sadaqad bixi. waxaan horata ku idhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi daawu mardaakum bisadaqa, dadkiina buka ama bukaankiina ku daweeya sadaqada. gabadh baa la soo hadasho waxay ku tidhi jaarkayga ayaa idhibo intaa caaya, wax allaala waxaan ku sameeya garan maayo. wuxuu ugu jawaabay uu sheekhuu ku idhi sadaqad bixi. sababtuna waxa weeyaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi dubuu can acraadikum biamwaalikum calayhi salaatu wasalaam, oo macnaheedu ay tahay sadaqad sii qofkaad ka baqaysid carabkiisa iyo sharkiisa. hadhowtana nin kalaa la soo hadla wuxuu ku idhi mashruuc cusub ayaan bilaabayaa, waanan ka baqay inaan ku fashilmido, oo waxaan sameeyaa? wuxuu ku idhi sadaqad bixi. sababtuna waxa weeyaan ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku idhi bismi illaahi araxmaani araxiim, mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabbatin anbatat 7 sanaabil fii kulli sunbilatin 100 xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa, sadaqa allaahu alcadiim. sheeko ka mida sheekooyinka iga yaabisay noloshayda waxa weeyaan sheeko nin masriya oo dalka masar u dhashay oo layidhaaho salaax catiya. ninkaasu sheekadiisu waxay ku tusaysaa inuu qofku wax uu bixiyo oo ilaahay uu tijaarad uu la galo, uu sadaqad uu bixiyo, siday u bedeli karto malaayiin dad oo adduunkan ku nool oo farxad wejigood ay ugu sawiri karto. ninkaas salaax catiya waxay dadku u bixiyeen yaqaanay milyaardeer alghalaaba ama milyaardeerkii masaakiinta. ninkaas wuxuu ahaa nin aanay dadku aanay garanayn, siyaasad kumuu jirin, miidyaduna iyo telefishinaduna may aqoonin. ninkaas maalinta la bartay ee dadku ay ogaadeen wuxuu qaban jiray waxay ahayd maalintii geeridiisa, oo meydkiisa ay raaceen dad ka badan 250,000 qof. marka laga yaabay tirada dadka fara badan ee meydkiisa la socota ayaa la bilaabay in la isweydiiyo oo la baaro ninkan muxuu ahaa, muxuu samayn jiray. salaax catiya wuxuu ahaa nin diiday xil iyo mansib diiday oo ka carari jiray. wuxuu ahaa nin xisbina aana ku jirin, qabiilna aana ku tiirsanayn. manuu ahay nin aftahamo ah oo hadalka yaqaano oo hadalkiisu uu macaan yahay. wuxuu ahaa nin fikir aaminay oo fikirkaa u dadaalay oo fikirkaas uu dhaliyey midho ugu wacnayd inay dad fara badan noloshooda ay isbedelto. mashaariicda khayriga oo ninkaasi uu sameeyey dowladdu filis kumay darsan, caawimaadna kamay bixinin, wax kasta isagaa keligii qabtay. salaax catiya wuxuu dhashay 70-adii ayuu ku dhashay. wuxuu u dhashay 2 waalid oo aad u faqiira. faqri daraaddeed wuxuu gaadhay inaanu weligii aanu gashanin dhar cusub oo weligii uu xidhan jiray dharka huudheydhka. aabbihii wuxuu u soo iibin jiray saiska kabaha 44, haddana isagoo saiskiisa dhabta ay ahaayeen 42. taana wuxuu ugu wacnayd inuu aabbihii uu ka fakari jiray sannado fara badan kabahan ho hayaan, oo markuu koro yaanan mar kasta kaba cusub aanan soo iibinin, lacagteed aanan awoodi karin. wuxuu ku dhashay magaalo yar oo layidhaaho tafahna al ashraaf oo ku taala dalka masar. wuxuu dhigtay jaamacadda ama cilmiga beeraha ayuu soo bartay. markuu dhammeeyey ayaa isaga 9 dhalinyaro oo jaamacadda ka qalin jabiyo ay saaxiib yihiin ayaa waxay go'aansadeen inay furtaan mashruuc digaaga la dhaqaayo iyo beedka. laakiin dhibaatada haysatay waxayd faqri badan iyo baahi fara badan baa dhalinyarada haysatay oo caqabad ahayd inay mashruucooda ay bilaabaan. aakhirkii waxay ururiyeen lacag gaadhaysa, ayuu mid kasta ururiyey 200 oo ginee masriya. dabcan waa lacag yar, oo haddana lacagta waxay ka heleen dumarkoodiina lacag dahabkoodii ay iibiyeen ama dhul ay lahaayeen ay iibiyeen ama lacag ay soo amaahdeen. mid kasta 200 ginee ayuu la imi. markaase waxay idhaaheen lacag
lacagtana naguma filna waa inaan baadhno sheerle tobnaad ama qof tobnaad oo inala gala businesskan way raadiyeen in badan laakiin way waayeen oo sababtan waxa ugu wacnayd magaaladooda dadka degan oo dhan waa faqiir oo lacag ma haystaan waxa uu imi hadhowtana Salaax Catiya oo ka mid ahaa 9 nin ee heshiiyey in businesskaas ay wada galaan markaas wuxuu ku yiri waan idin helay sheerlihii tobnaad markaas farxeen ku yiraahdeen waa kuma Salaax Catiya wuxuu ugu jawaabo ku yiri Allah subhanahu wa ta'ala ya inala galaya sheerka sharikadeena Ilaahay wuxuu inoo noqonayaa sheerlihii tobnaad wuxuu leeyahay 10% faa'iidada ka soo baxda mashruucan sanad kasta bedelkuna waxa weeyaan inuu ina oo inoo naxariisto oo faqriga uu inaga saaro oo xanuunada inaga ilaaliyo oo inoo waafajiyo oo arsaaqadan ina soo galaysa inuu inoo barakeeyo way ogolaadeen oo way ku heshiiyeen caqd bay qoreen oo notaayad bay qorteen oo khaanadii sheerlaha tobnaad waxay ku qoreen Allah subhanahu wa ta'ala sanadkii koobaad mashruuci lacag fiican baa soo gashay sanadkii labaad lacag aad u fara badan baa soo gashay sheerlaha tobnaad 20% ka soo gali jirtay ee faa'iidada sanad kasta waxay go'aansadeen inay ku bedelaan nolosha dad fara badan oo ku nool magaaladoodaas aan cidna aanay garanayn magaaladoodu waxay ahayd magaalad dawladdu aanay danayn jirin oo mashaariic aan laga furi jirin oo jaamacado iyo iskuulaba aanay ku oolin oo dawladdu aanay lacagna iyo dhaqaalaba aanay gelin jirin waxay go'aansadeen inay nolosha magaaladooda ay bedelaan iyo dadka ku nool talaabadii koobaad ay qaadeen waxay ahayd inay dhiseen iskuul barbaarinta caruurta oo bilaasha waxa ku xigay inay dhiseen maxad diiniya oo hablaha hadhowtan waxay dhiseen maxad diiniyo inamada talaabadii kale waxay ahayd maxad saro inamada iyo hablaha in la dhiso hadhowtana maxad secondary oo hablaha iyo inamada loo dhiso markii lacagtii ay korodhay ayaa way fakareen waxay ilaaheen maxay ardaydu uga baxayaan magaaladeena ay u tagayaan gobolo kale si jaamacad ay uga galaan man jaamacadba magaaladeena aan ka dhisno markaasay wasaaradii waxbarashada waraaq u la tageen wasaaradii waxbarashadu waxay ku xidhay inay marka ugu horeysa tareen la dhiso intaana jaamacad laga dhisin magaaladooda markaas way fakareen waxay yiraahdeen hadaba man tareen aan ka dhisno magaaladeena markaasay lacag ururiyeen oo ay tareen ay ka dhiseen magaaladoodii hadhowtana tareenkii bay dhiseen oo tareenkiina way ku guuleysteen oo tareenkii way sameeyeen markaasay bilaabeen hadhowtana inay jaamacad ay dhisaan jaamacadii koobaad ee magaaladooda laga dhiso oo ka koobnayd 2 faculty hadhowtana 4 qaybood oo kale ay ku soo kordhiyeen hadhowtana markii ardaydii farabateen ee magaalooyinka kale ee u dhow magaaladooda ay ka imaadeen si jaamacadda u galaan ayay waxay dhiseen boordan hablaha loogu talagalay oo 600 hablood ay gali karaan waxa ku xigay inay dhisaan boordan kale oo inamadu ay gali karaan oo 1000 arday ay gali taas waxay ugu wacnayd jaamacadaas iyo tareenkaas inuu dhaqaali u kor u kaco oo tijaaradii ay wacnaato iyo dadkii wax kala iibsadaan oo dhaqaale iyo lacag inuu soo galo magaalada dadkii magaalada deganaa waxay bilaabeen inay dhisaan qolal yaryar ee guryahooda ay ka dhisaan oo hadhowtan ay ka kirayaan ardayda imanaya gobolada kale ka imanaya ee jaamacadda galaya hadhowtan way fakareen waxay yiraahdeen baxay dadku ay u tagayaan gobolada kale si dhakhtar ay ugu tagaan man dhakhtar wacan aan magaaladeena aan ka dhisno dhakhtar weyn ayay ka dhisan oo loogu talagalay dadka danyarta oo tigirku uu bilaash yahay oo dhakhtarkaas qaybo fara badan oo kala duwan ayuu leeyahay dhakhtarka maalin kasta waxa soo booqan jiray tiro ka badan 200 oo qof oo bilaash lagu baari jiro dawadana la siin jiray hadhowtan waxay ka fakareen ay yiraahdeen man samayno bayt maalil muslimiin meel zakada iyo lacagta lagu ururiyo markaas dadkii ay ku dhiiriyeen inay lacag bixiyaan oo tabaruc ay sameeyaan si mashaariic magaaladooda loogu sameeyo dadkii baa lacag iska ururiyo oo halkaas lacagta lagu ridi jiray bayt maalil muslimiin iyo طبعا lacagta ka imanaysa sheerlaha tobnaad بيت مال المسلمين لعقتك كسو بixi jirtay mashaariic fara badan baa lagu sameyn jiray oo kamida in khudradda ay beeraleydu ay beeraan in dawladaha iyo gobolada kale u dhow loo diro dumarka carmalka iyo agoomaha in loo furo mashaariic loo furo iyo xirfado loo sameeyo hablaha ana guursan kar in loo guuriyo in dadka xirfadaha laga caawiyo xirfadahooda haduu dhakhtar yahay in loo dhiso dhakhtar haduu yahay qof xirfad kala garanaya sida warshadaha ka shaqay in warshad yar loo furo qalabkii loo keeno رمضان كانت dadka danyarta in cunto la sameeyo afur bilaash loo sameeyo Salaax Catiya runtii hadan hadalka soo koobno wuxuu awooday inuu bedelo dhaqaalihii iyo noloshii magaaladii Tafahna al-Ashraaf iyo dadkii inuu khayr ku beero oo khayrkaas uu fido
صلاح عطية ودنتي إلهي هو نحريستو لكن تصالو عن أيو نوغتغي وكم مضان إنا لغو دايدو وحقرتان إني صدقتو يواناغو ينحريستو يينا ددك لو غرغارو إني تهي تا البابد حران كو فريسا ee cuqdadaha fara badan ee noloshaada ku jirta furfuri karta iyo tafarajka keeni karta ee dhibaatooyinka nolosha ka saari karta an tijaarad ilaahay la galno tijaarada ilaahay la galayaana uma baahna diraasad ra'simaalna uma baahna waxa qori u baahantay waxa weeyaan niyad wacan iyo in yaro dadaala lacag hadaad haysid oo bishii ay ku soo galaan $100 bal isku day inaad nisbad ama qayb kamid ah lacagtaas inaad sheer ilaahay kula gashid oo bedelkuna uu noqonayo naxariis iyo gargaarin ilaahay ku gargaarayo iyo jannad ilaahay uu ku gelinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu yiri إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.